waa gabadh da'yar oo u dhalatay dalka Ruushka waxaana aabaheedu uga dhintay lacag fara badan lacagta ay haysataa waxay ahayd 80 milyan oo dollar waxay dalxiis u tagtay dalka Kenya waxaana ay booqatay qabiilka Maasaiga meesha ay degan yihiin waa qabiilaadka Koriya ama dhaqa looda gabadhan markii ay dhex gashay qabiilka Maasaiga ayaa waxay jeclaatay wiil dhalinyaro ahaa oo ka mid ahaa qabiilka Maasaiga kadibna markii ay in badan la nooleed halka wiilkii waxay ka cusatay inay isguursadaan markii ay guurka u soo bandhigtay wiilkii uu ka ogolaaday bariye ka bacdi waxay u sheegtay inay u dhalatay dalka Ruushka oo ay haysato lacag kor u dhaaftay 80 milyan oo dollar waxaana ay ku tiri haddii aynu dhoofno oo aynu tagno wadankii aan u dhashay iyo magaaladeydii waxaad qayb badan aad qaadan doontaa lacagaha faraha badan shirkadaha aan leeyahayna adiga ayaa maamuli doona wiilkii waxa uu ka diiday waxa ay ku hadlayso waxa uu yiri halkan ayaan qani ku ahay waxaana aan ahay wiil haysta lo fara badan wiligeena meel aan halkan ahayn umana dhaafi doono inantii waxay in muddo ah ka dhaadhicisay wiilkii inay u dhoofaan dalka Ruushka laakiin uu ka diiday waxay tiri halkan ayaan kula degayaa ilaa inta aad ku ogolaanaysid waxay dhammaan dadkii goobta deganaa ay ka codsatay inay ka dhaadhiciyaan in halka wiilkan uu shaqo tago lacagtaana uu qayb qaadan doono ninkeedana uu noqon doono waliba uu saxiixi doonto dhammaan hantidiisa inuu soo gacanta ku qaban doono laakiin wiilkii kinaatiga ah waa uu ka diiday waxaana uu yiri halkan ayaan rabaa aan ku dhashay waalidkaygu ay igu garanayaan halkan ayaan ku nafisayaa oo aan ku ahay in hebel mana rabo inaan tago Ruushka sidii ay u wada degan yihiin dalka Kenya gaar ahaan qabiilka Maasaigu meelaha ay degan yihiin gabadhu waxay ku dhex nooshahay lo aanay weligeed garan iyo meel aanay weligeed jawigeeda garan waxaana ay markii ugu horeysay u timid dalxiis laakiin markii dambe calafka ayaa isku bedelay waxaana ay wiilka u qaaday jacayl waali ah oo aanay weligeed ka samrayn ilaa heer ay la gaadhay ay lacagaheeda waxba u arki weydo iyadoo shirkado fara badan ku leh dalka Ruushkana ay weli ka degan tahay dalka Kenya waxaana ay tiri ka dhoofi maayo kamana tagi doono halkan ilaa wiilkan aan sii ka haysto oo aan geeyo dalka Ruushka bal ka waran arigan cajiibka ah waxa laga yaabaa adoo Soomaali ah haddii ay gabadh ku oran lahayd lacag fara badan ayaan haystaa waxaana aan ahay qof cadaan oo u dhalatay wadamada Yurub ama Ruushka waxa laga yaabaa in hore u raaci lahayd oo aanad hadalba ka diideen laakiin wiilka Maasaiga ahi waxa soo dhan uu diiday waxana wali uu la degan yahay dalka Kenya iyo dhulkii uu ku koray ee Maasaiga kani waa Bill Gates waa mid ka mid ah ragga ugu taajirsan dunida gabadhiisa Melinda ayaa la fadhida waxay dhawaan sheegtay inay ka codsatay warqadii furniinka odaygeeda waxaana ay tiri waanu kala tagi doonaa waxay isku dhaleen 3 caruur ah waxaana ay isqabeen in ka badan 27 sano family-gan inta badan isku faraxsanaa wax badanna ka wada qayb qaatay noloshana in badan isla joogay ayaa waxay soo gabagabeynayaan gurigii ay yagleeleen in ka badan 27 sano ka hor haddaba ragga lacagaha faraha badan haystay dunida ku dhaqan ayaa imika waxa la sheegaya inay soo badanayso furniinka dumarkoodu ay mar walba ku sameynayaan inta badan dumarka ayaa codsanaya warqadda furniinka iyo inay ka tagaan raggooda haddaba dad badan ayaa waxay isweydiinayaan lacagaha faraha badan ee raggani haystaan sababta ay u kasban waayeen dumarkoodu inay la sii joogaan iyo dhibaatada meesha ku jirta in la ogaado tan ayaan kow ka ahayn in ragga lacagaha faraha badan haysta aanay farxad badan siinin dumarka sirta dumarku ay ka weyn tahay malaayiin dollar oo aad meel dhigatid iyo kumanaanad ku faantid iyo inaad noqotid qofka ugu lacagta badan dunida hooyo u nool si cajiib ah haddii klibkan ama fiidiyogan uu soo gaadho waxaad tiraahdaa alxamdulillaah hooyadan waxay laadahay labada gacmood laakiin jirka inteeda kale waxba kama maqna ubadkeeda iyada ayaa korsata gurigeedana iyada ayaa ka shaqaysata hooyadani si cajiiba ayay ilmahan u soo daadajinaysaa ilmahan markaa waxay siinaysana waxay ku siisaa labadeeda lugood balgacadda ayay weliba wax ku siisaa ilmaha yari wax baahi ah ma oga mana oga hooyadii inay laba gacmood leedahay ama la'dahay laakiin hooyadan ayaa ilmaheeda iyadu ka adag gurigeedana iyadu ka adag qaabka ay u nooshahay waa qaab cajiib ah waana qaab aanay dareemeyn inay wax ka maqan yihiin mar walba waxay ku meedhataa waxna ku siisataa caruurteeda gurigeedana ay ku hagaajisataa waa labadeeda lugood maadaama labadii gacmood ay ka maqan yihiin waxay mar walba isku daydaa inay baahida labadii gacmood ay u qabtay ay maanta dabari karto
maadaama jirkeeda aanu ilaahay ku abuurin labadii gacmood. waxay leedahay mar walba waan ku faraxsanahay qaabka aan ahay sida aan ahay, waxaana ay tiri waxaan dhaamaa dad fara badan oo labadooda gacmood haysta laakiin maanta isku haysta inay wax badan ay ka maqan yihiin, laakiin anigu uma haysto inay wax badan iga maqan yihiin. waxaan baa ogahay inaan iyagana ka wanaagsanahay in badan. qalbigayga iyo niyadeyduna waxay ku degan yihiin qaabka aan ahay